بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم dadweynaha tirada badan leh ee halkan iskugu yimiday caawa si ay si qurux badan ugu dabaaldegaan habeenkooda uu leeyahay xisbiga kulmiye oo xisbiga ugu ballaaran xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland habeenadu leeyahayna dalka oo dhan laga dareemo iyadoo dadka lagu soo gurin basas iyadoo dadka la soo kiraysan magaaladu sideeda ay u dabaaldegto walaalayaal diyaar ma u nihiin 13 November inaynu mar kale talada dalka u cumaamadno madaxweyne Muuse Biixi Cabdi diyaar ma u nihiin diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin walaalayaal madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaynu ku dhisaynaa isagoo hogaamiye rugcadaaya isagoo la soo tijaabiyay 7 sano ee la soo dhaafay isagoo xukuumaddiisu ay dalka ka qabatay wax qabad ballaaran oo dalka oo dhan oo meel gaar ah lahayn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maanta marka la barbar dhigo saaxiibadiisa ama walaaladiisa la sharaxan ee injineer Faysal Cali Waraabe musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaynu u aragnaa inuu yahay ka ku habboon soo bandhigay aragti lagu qanci karo oo la aamini karo oo lagu dooran karo 5 sano soo socda walaalayaal sameeyeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ma yahay kan ugu habboon talada dalka in mar labaad loo dhiibo ma u dooranaa talada dalka mar labaad madaxweyne Muuse Biixi reer Soomaaliland waxaanu ku dhisaynaa oo anigu ku dhisayaa 7 sano la soo dhaafay kow wax qabadka ka hirgalay magaalada Hargeysa xagga horumarinta kaabayaasha biyaha iyadoo magaalada Hargeysa noqotay xarun ama wakaalada biyaha Hargeysa aqoonyahanka dalka oo dhan ceerigaabo burco boorama ay ku soo ururaan oo maskaxdooda wada reer Soomaaliland oo qabyaalad kuma dhisayno madaxweyne Muuse Biixi doorashadu markay dhacdo Arbacada waxa mar kale loo dooran doonaa inuu reer Soomaaliland oo dhan hogaamiyo walaalayaal aragtida uu soo qadimay xisbiga wadani marka la eego 7 sano la soo dhaafay ma aha mid ay shacabku mar kale siin karaan kalsoonidooda marka la eego duruufihii dalka ka dhacay sidoo uga jawaabay marka laga soo bilaabo aqbalaadii natiijadii doorashada 2017 aqbalaadii natiijada 2017 oo farqigu ahaa 80 kun oo cod rafashadii uu ku raftay musharaxa xisbigaasi inuu aqbalo natiijadii doorashadii xorka iyo xalaasha ahayd waxay ka horseeday kala qaybsanaanta dalka ka dhacday shirkii buurta Gacanlibaax oo isaguna ahaa waxyaabaha inagu abuuray khilaafka bulshada marka walaalayaal ku reer Soomaaliland waxaynu ugu baaqaynaa waa walaaltinimo waxaynu ugu baaqaynaa waa midnimo saddex odaybaa sharaxan saddexdaas maynu kala dooranaynaa reerama kala dooranayna reer Soomaaliland oo reeraynu kala dooranaynaa saddexda musharaxba waa saddex nin oo walaalo oo reer Soomaaliland cid ka shishaysaa ma jirto dhammaantood waa dad inoo dhow madaxweyne Muuse Biixi waxaynu ku dooranaa wax qabadkii ballaanaa ee xukuumaddiisu hirgelisay iyo aragtida mustaqbalka oo inoo soo bandhigay iyo galaangalka diblomaasiga uu ka sameeyay gobolka geeska Afrika bariga Afrika iyo caalamkaba oo soo dhaweysay rajadii ictiraafka Soomaaliland walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa maalmaha kooban ee noo hadhay inaynu la shaqeyno ciidamada booliiska inaynu yarayno wixii kala qaybsanaanta bulshada kordhinaya inaynu la shaqeyno komishanka doorashooyinka inaynu la shaqeyno arrintaa diyaar u nahay walaalayaal codka ballaaran ee Hargeysa yaala Hargeysa waa meesha codka ugu badan ee dalku yaalo waxaanu reer Hargeysa dhammaantood ka codsanaynaa war madaxweyne Muuse Biixi waa ninka ugu habboon war maanta nin walba damiirkaaga adeegso salaada subax markaad tukato ka fikir yaa ugu habboon maanta caruurtaada haddaad macallin u qabanayso saddexdaada ee macallimiin ahaan lahaayeen musharax injineer Faysal Cali Waraabe iyo madaxweyne Muuse Biixi haddii caruurtaada aad u baahnayd aad macallin guriga wax ugu dhigo u qabato yaad u qaban lahayd dabcan Muuse Biixi haddaad doonayso macallin tababare ciyaalkaaga yaad u qaban lahayd haddaad doonayso cidaad koob shaah la cabtood la sheekaysato saddexdooda markaad kala dooratay yaad u dooran lahayd walaalayaal Muuse Biixi waa ninka kaliya cadowga Soomaaliland siday u dhan yihiin cadowga Soomaaliland dawladaha shisheeye ma aha gudaheena
maaha bulshadeenna qayb ka mida cadow haddii la yidhaha maaha walaal waa dowladaha ka soo horjeeda jiritaanka somalilan warkaa ha la maqlo waa dowladaha iyo shisheeyaha ka soo horjeeda jiritaanka somalilan walaalayaal sidaa quruxda badan loo dabaaldega innagoo faraxsan baynu doorashada gelaynaa madaxweyne muuse biixi waxaynu ku dooranaynaa barnaamijkiisa madaxweyne muuse waxaynu ka rabnaa dowlad taabagala inuu noo dhiso oo uu sii xoojiyo dowladnimada waad mahadsantihiin